kusoo dhawaada halkan waa telefishinka Rays xaruntiisa magaalada Muqdisho qodobada ugu waaweyn warkeena caawa waxaa kamid ah ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo maanta la wareegay degmadii ugu dambeysay ee Al-Shabaab ay ka haysteen gobolka Shabeellaha Dhexe Senator Ilhaan Cumar oo ka tirsan Koongareeska Mareykanka oo maanta gaartay magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland iyo darawalada kaxeeya bajaajka oo maanta banaanbax ka dhigay magaalada Muqdisho intaasi waa qaar kamid ah qodobada ugu waaweyn warkeena iminkana u diyaar garooba iyagii oo dhameystiran aan ku bilaabay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaan Macawisleyda ayaa maanta dib u la wareegay deegaanka Ruunirgood ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana deegaankan uu ahaa deegaanka kaliya ee Al-Shabaab ku haray gacantooda afayeenka wasaaradda amniga ee ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe hadalno guulihii u dambeeyay ee ay gaareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo cutubyada hubeysan ee kacdoonka shacabka Soomaaliyeed saakay 6 aroornimo waxay ciidamadaas isbahaysanaya oo hogaaminaya xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegeen degmada Ruunirgood waxa hoos yimaada tuulooyin badan tuulooyinkaas muddo waxa ka soo socday dagaallo tuulooyinkaas waxa kamid ah tuulada Juxa Al-Naciima Al-Kawthar oo dagaallo adag ay hore uga soo dhaceen xogtoodana aad hesheen oo ay ku dhinteen ugu yaraan 150 maleesiyooyinka cadawga ah ee Al-Shabaab 15 maxaabiis laga qabtay 5 ajnabiyana lagu dilay intaas tuulooyinkaas waxay hoos yimaadaan degmada Ruunirgood iyo kuwa kale laakiin ciidanku saaka waxay xaqiijiyeen 6 aroornimo si buuxda inay ula wareegeen degmada Ruunirgood ciidamadii cadawga way yaaceen baacsiga ciidankii qaarna degmadu ku sugan yahay oo sugidda amnigeedii iyo baaris iyo qaraxyo iyo waxa laga raadinayaa inkastoo wali waxba laga helin oo ay nadiif tahay ciidanna wuxuu ku sii jiraa baacsiga cadawga waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala baacsigaasna inaan helbo fiican kala hadlo degmada Ruunirgood waa degmadii u dambeysay ee dawlad goboleedka Hirshabeelle ee cadow haysta ee laga xoreeyo laga soo bilaabo Matabaan ilaa iyo Caliyaalo ama Ceel Cafiid dhammaan degmooyinka dawlad goboleedka waxa Hirshabeelle waxa gacanta ku haya dawladda Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedka way jiraan meelo ay cadow kaga harhareen sida galbeedka Hiiraan iyo galbeedka Shabeellada Dhexe ayagana insha Allah ta'ala dhawaan waa la kurtuma jaraya meelahaas ay u carcarareenna waa laga saari doonaa waana loo diyaarsan yahay cutubyada halkaas ka howlgali lahaana waa loo diyaariyay shacabka Soomaaliyeed maanta waxaan uga farxinaynaa guushan cusub ee ciidanku gaaray guuluhuna waa isdaba socdaan haddana mar dhow waxay u gudbi doonaan dawlad goboleedyo kale dawlad goboleedyadaas ma aha kuwa hadda fulinta ka jira oo kaliya dawlad goboleedka u gudbayaan ee dawlad goboleedyo kale diyaar garoobay ayadoo ay hawlgal ka bilaamayaan mar dhow oo ciidankoodii xoogga dalka Soomaaliya sektorkii meeshaas deganaa ama qaybtii deganayd iyo xoogga shacabka iyo dawlad goboleedka daraawiishtu ay ka wada howlgalayaan insha Allah guushaas yaanu maanta inii soo sheegaynaa wixii dambe iyo guulaha la gaarana waan soo sheegaynaa hambalyan waxaan leeyahay dawlad goboleedka Hirshabeelle way guuleysatay degmooyin dawlad goboleedyada kale oo ay dariska la ah sida galmudug oo kale waxaan rajaynaynaa shacabka galmudug waa shacab dagaalama dagaalkana way yaqaanaan ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhan way la joogaan ayaguna way abaabulan yihiin iyadaan noqonin fulow guul ku dhaweeda waa in ciidamada lala howlgalo lana iskana kiciyo cadawga haysta dawlad goboleedka degmooyinka ugu badan marka laga reebo gobolada Jubbaland meesha uu cadawga ka haysta waxa weeyaan waa dawlad goboleedka galmudug
xarardheere ceeldheer galhareeri ceelbuur iyo tuulooyin yaryar degmooyinka waxba ka dhaceen dad badan aad u degan yihiin ciidankiinu waa abaabulan yahay waxaan rajaynaynaa mar dhowaan ciidamadu degmo tuulo beelbeel deegaan in insha allahu tacaala ciidamadaas iskaashaday xoogga dalka iyo ciidamada qalabka sida iyo ciidamada goboleedka iyo kacdoonka shacabka Soomaaliyeed inay iska kaashadaan guulo ballaaran la gaaro wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa ayaa maanta qarax lagula eegtay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe saraakiisha laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in qaraxaasi khasaare dhimasho iyo dhaawacba uu geystay waxa warkan inoo faahfaahinaysa wariyaheena Fartuun Cali wararka naga soo gaaraya duleedka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in maanta halkaasi qarax lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya iyo ilaaladiisa sarkaalka oo lagu magacaabi jiray laba xidigle Cabdirashiid Axmed Cabdulle ayaa qarax miinada nooca dhulka lagu aaso qabsaday gaari uu watay xilli uu marayay wadada u dhaxaysa degmooyinka Jawhar iyo Mahadaay waxaana halkaasi ku dhintay sarkaalkii afar kamid ah ilaaladiisa sarkaalka qaraxa lagu dilay oo tirsan ciidamada guutada afraad ayaa hogaaminayay ciidamo ilaalo ka ahaa deeq macaawina oo laga keenay magaalada Jawhar kuwaasi oo lagu talagalay qoysas ku nool degmada Mahadaay hayeeshee qaraxa uu qabsaday ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ayaa gaaray halka qaraxa uu ka dhacay waxaana meedka sarkaalkii askarta la dhimatay la geeyay magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle Allaha u naxariistay laba xidigle Cabdirashiid Axmed Cabdulle ayaa kamid ahaa saraakiisha hogaaminayay howlgallada ugu dambeeyay ee ciidamada iyo dadka deegaanka ay ka fuliyaan deegaano hoostaga degmada Mahadaay isla markaasna ay la wareegeen deegaano ay gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab inta badan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa weeraro iyo qaraxyo la beegsada ciidamada huwanta ee haatan dhaqdhaqaaqyada ka wada gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe wadayaasha mootooyinka bajaajka ee ka dhex shaqeeya gudaha magaalada Muqdisho ayaa maanta banaanbax waxa ay ka dhigeen gudaha caasimadda magaalada Muqdisho iyagoo cabasho ka muujinaya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya wali magaalada Muqdisho gaar ahaan gawaarida ama bajaajta waxaa lagu hayaa bandowgii ciidanka dowladda Soomaaliya ay ku soo rogeen muddo bilooyin ka hor waxa warkan inoo faahfaahinaya wariyaheena Faysal Cabdi gobolka Banaadir musuqmaasuq ku jira musuqmaasuqaasna ma wax yar waa la wada ogyahay ninkii ciidana ayaa gaarsiya qofkii meesheedu lagu celshay markii la yiri waa fasaxantahay markii la yiri oo gurigiisii oo u socday hadana la yiraahdo taamkiya kugu dhacay ana taamkiya igu riday adaa igu riday macna afkay ay iyada ku cunta alla fareegiya subaga ku cunamiya marka dawladdu waceeda halkan oo ah isgoyska lambar afar ee magaalada Muqdisho iyo wadooyin kale oo ka tirsan caasimadda waxa maanta banaanbaxyo xoogan ka dhigay wadayaasha mooto bajaajka kuwaas oo cabasho xoogan ka muujiyay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya kuwaas oo ay sheegeen dhibaatooyin fara badan ay kala kulmeen waxa ay tilmaameen xalifiidkii iyadoo aan lagu soo wargelin ay ciidamadu xirteen wadooyinka caasimadda isla markaana ay halkaas u go'doonsameen wixii intaas ka dambeeyeen waxa ay sheegeen in la fasaxay 2:00 habeenimo ama 8 saac habeenimo wixii halkaas ka dambeeyeen waxa ay aadeen xaafadahooda intaas iyaga oo xaafadahooda u socdana waxa markaasi ku dhagay ciidamo ka tirsan dawladda oo kala wareegay mootooyinkii iyo firoyaashooda waxa ay sheegeen in lagu xujeeyay in ay lacag bixiyaan haddii ay doonayaan mootooyinkooda ay dib u helaan qaar ka mid ah wadayaasha mooto bajaajyada oo halkan warbaahinta kula hadlay ayaana waxa ay dawladda ka dalbadeen in si degdeg ah ay uga jawaabto cabashadooda laakiin cabashada ugu weyn oo jirta waxay tahay gobolka Banaadir waa gabiyay shaqadiisa sideedana waxa jirto laba dhalacaana haddii mid liin lagu miiro midda kalena nadiif tahay midna ay kala gooyso gobolka Banaadir maamulka go'aanka soo jeediyaan kuwa hooseeya ayaa waxa ku walaaqo waxa dhacday xalay 2 saac iyo 40 in meeshaan nugula xayiray 7 saacna nagala sii deeyay kadibna saldhigaashii oo dhan nugula xirxirtay waxa kale jirto saldhig walba ninkii mooto ugu jirto walaalkiis ciidan yahay ambi kala mas'uul oo yaqaano hoos ayuu kala hadlayay hoos ayana loo deeyay shicibka gobolka Banaadir mid ma uu yahay mise waa labo dawladda Soomaaliyeed waxa ka codsanayna qaasatan Xasan Sheekh Maxamuud inuu gobolka Banaadir go'aan ka soo saaro mana doonayna gobolka Banaadir musuqmaasuq dooni meeno
nabadaa ku mudaharaadeena gobolka banaadir dhammaan ma dooni mayno waan iska celinaynaa haddii tallaabo si degdeg ah wax noogala qaban waayo hantideena waa la haystaa ilmahena ma haystaan waxay cunaan ilaa xalayna meesha ku horgalnay oo ku hooyanay haddana waa taaganaanay asiina waa dhergan yahay ilmaheennana baahiyaayo guryaha ku joogaan maxaan samaynaa qori ma qaadanaa al-shabaab maa la jirnaa dowladda waxaan ka codsaynaa inay haddee rabtay inaan taageerno inay gobolka banaadir naga qabato gobolka banaadir musuq maasuqoo ku jira musuq maasuqaasna maaha wax yar waa la wada ogyahay ninkii ciidan ah ayaa gaasiya السلام عليكم annagoo ah bajaajlada Soomaaliyeed waxaan ka cabanaynaa wadooyinka habeenkii iyo maalintii annagoonan ogeyn oo social media la soo dhigin la iska xiranayo hooyo xaamila iyo qof xanuunsan baa aan loo deenayn oo dadka rayidka xitaa loo deenayn waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed in wadooyinka ay noo furaan annaga dhibaato ma wadno 6 saacna dhibaato habeenkii annaga ma wadno laakiin qorshahan waxa wato dadka ganacsatada fadlan waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed inay wadooyinka noo furaan nin waxaan ka cabanaynaa xalay gobolka banaadir iyo dawladda Soomaaliya qalad weyn naga gashay gobolka banaadir iyo dawladda Soomaaliya xalay qalad weyn naga gashay dhibka ugu weyn oo naas wuxuu xalay 8 fiidnimo annagoo shaqadeena wadano yoomkeena bursanayno dawladda Soomaaliya ciidamo koof guduudna hor dhigtay isgoyshada magaalada Muqdisho inaan nagu celiyay abaar xalay 8 daqiiqo nagala daayay mar alla markii nagala daayo nin walba xaafadiisa aadi maagay kontaroolka ugu horeeya booliis degan yahay xabadaan nagu riday furayaasha waa nagala qaatay mootooyinkana waa nagala xareystay tan ugu weyn macnaha aan la yaabanaan waxay tahay gobolka banaadir inuu macnaha militariga Soomaaliya inuu macnaha jidka nagu xiro gobolka banaadir inuu marqaati ka ahaw markii ay nafasaxaan ee gobolka banaadir ciidamo ka socday mootooyinka naga xareystaan tan ugu weyn walaalo ka cabanayna wata gobolka banaadir markuu waxa ka codsanaynaa cashuurina naga qaataan jidka Muqdisho waa xiran yihiin oo ku sabarnaa dhibka ugu weyn oo naas wuxuu yahay jidkii ayadoona wada xiran yihiin oo habeenkii 6 saac banda nagu soo xiran amarkaan qaadan iyo haddana dawladdiina qaar kamid ah jidka xiranay markay fasaxaan kadib gobolka banaadir qayb kamid ah booliiska Soomaaliya kamid ah markaasay nagu dhaqmeen inay furaash naga qaataan naxabadayeen xalay indhayna maanta waxay isgooska nambar afar u taaganahay abashada gobolka banaadir khaasatan bajaajley anagoo ah xalay 2:40 ayaa isgooska taleex aan lagu hareeyay waxaana la sii daayay 9 saac hoogo markii ka bacdi waa saldhig kasta oo mooto kasta oo martay waa la qabtay mooto kasta oo la qabtay waxa laga rabaa $10 dadkana celinaya dawladda Soomaaliya bay ahaayeen kuna qabanaya dawladda Soomaaliya ahaayeen waxa la rabaa horta maadada koowaad dawladda Soomaaliya inay iska warqabto oo la yiraahdo maanta dhibkaas jiro dhibkaas kale jiro mootooyinka iyo dadka kale shacabkii lugtooda la diiday 2:40 wixii ka sokeeyay wax soconaya ma jirin lugaha ahaato mooto ahaato baawur ahaato أولا دبان قبني وقرسيني ودبكا قبني هي دولة أوامر سو صارتي أوامر تدوا قادني لحسا ولا شيء فولا ما قادين كرتيد إسلام هذا ما قادين كرتيد أنا إسلام تيد أو فولا قادين وعي دبكاس ودول قادناي صبح مركي لامي سو فول أنشورة اللي قربا أنشورة تساس ودول قادناي وبحناي لامي لما مركرو هبينك لحسا مركي اللي قارس أدا فيرنيسا أذكري متكي شغله كلهن ولانت جاتكو فيرنيا وجدكو سو استهجيا waayo isha ma hay'ad laamigan kama shaqeysan karno waxa ku shaqeysan karnaa waa gobolka banaadir waxa dhabku nagu hayana waa isha habeenkina waa bal Soomaaliya laami la markara ma jirto dawladda Soomaaliya waa kor qabtaa halay dadka badooga soo dawladda Soomaaliya ay kuna qabanay dawladda Soomaaliya ahayn waxaan dalbanaynaa ulaaska khaasatan mootoley la hayo ana la ka qaado oo walaashaada qaadan karin oo isha isaaska qaadan karin isha ma hay'ad taasiya qaadan karin habeenkii 6 saac markii la gaaro gaadiidka la nahay isha dad gooniya loo daneeyay ma socon karno halay isha lugteena loo diiday lugtii talaabaan qaadi weynay ka bacdi markii 9 sano la fasaxay isha waxaan lagu hareeyay saldhigo ilaa hadda mootooyinka way hareeysan yihiin waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya in isha ma si degdeg ah oo isha ma hay'ad abasha aan qabno wax ugu qabato wabillahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan kala hadlaynaa dawladda Soomaaliya مشروع وحالة وحالة ضحايا صباحي بجاجك قبصو كقدمي سيدي أسكري والبا واسو شقتكي حتى والله وحا حقيقة إنه سن دولة مشارع وباهنين هبينك وحو اسكول إحسان 5 موتو إلا 6 موتو هدي من $5 وقعاتو دولة محو مشارع وباهن ياهي مركب مشروع أو مالي سلا ضحايا وايبا بجاجلي وحالة ديكتي مشروع لو سو شقتكبو askariga maalintii waa ku soo jiifana habeenkii waa ku soo shaqo taga waxa arkay 4 saac oo habeenimo ajaam waxa laga shaqeynaa ilaa 6 saac saacada inay kugu dhacdaa okay hadda xala waxa jirtay
hawl dawladda ay leedahay oo la yidhi qof walba yay meesheeda ka dhaqaaqin qofkii meesheeda lagu celshay markii la yidhi waa fasaxan tahay markii la yidhi oo gurigiisii oo u socday haddana la yidhaahdo taamkiyaa kugu dhacay ana taamkiyaa igu ride adaa igu ride macnaa afkay ay iida ku cuntay alla fareegiyaa subaga ku cuna miyaa marka dawladdu waxeeda waxaan wax shaqay kara ma ahan sideeda bannaanba annaga mashruuc oo loo soo shaqo tagaan noqonnay marka mashruucan ha nalaga baabi'iyo 60 saac iyo filinkeeda wax nalagu yaryaraystayba noqotaba marka 60 saac maba aqbali doonaba dhiiggaanna ku daadi doona hal ogaado mudaharaada sheegay war ilaa guryaha la isugu soo gala xataa wallahi inaysan midda kanaysan waana ka midaysanaa nin walba meesha uu taagnaa kama uusan dhaqaaqin waxa ka sii dareed qofka xataa lugtiisa ku socolaha in loo diiday waxaan go'aansannay inaan ku qanacno maadaama wuxuu nidaam dawladeed ay yihiin oo dawladdu ay barnaamijkan ka dambayso waxa falkaas samaynaya ciidan military ay yihiin madaxtooye ay ka yimaadeen booliisi militaar ay yihiin waxaan go'aansannay inaan dawladda la shaqayno oo waxa ay rabto ayadu aan u yeelno oon fulino haddii ilaahay raalli ka ahaaday sidaa daraaddeed amarkii aan u hoggaansanay qof walba meeshii uu taagnaa ayuu istaanbay ku noqday marka koowaad socodkii waa la diiday birtii qofka u watana waa loo diiday baabuurkiisii saan u taaganayn xala saacaddu markay ahayd 9 habeennimo ayaa oodina la ka qaaday waxaa dhibaatada ugu badan ay ka dhacday traafik jaam dhacay meesha traafik ma shaqeyn askari walba baabuurkiisu u fuulay dadka halkaas dhibaato ka dhacday 12 dad ku gaareen 12 saaka dad ku gaareen dadkii ka baxay oo meesha ka gudbay oo xaafadooda u socday booliiskii jagboontiyada joogay waxa ugu daraa degmada Wardhiigley jagboontiga ku yaala ii sheeg isbartii wasaaradii hore ee baalka ii sheeg waaxda dhulbixinta isbartiibada eeriyadeeda kii tawfiiq miisaanka dhuxusha ilaa suuqa xoolaha jidka warshadaha dhan dadkii xala ka xanimo mootooyinkoodii waa la xareystay furiyaashii waa laga qaatay mootooyinkoodii waa laga xareystay oo laga qaatay mid kasta waxa lagu xukumay $10 oo ganaaxa inuu bixiyo aniga waxaan la yaabna marka aad ula yaabanahay laba dawladood miyaa waddanka ka jirta boolisku ma dawlad gooniyaha militarigu ma dawlad gooniyaha annaga ilaa hadda waan fahmi weynay waddankan xal militarigu u xiraa dana dawladeedu wada sidaan u aragnay waan aqbalnay waan raacnay dhibaato ma jirin wixiina qabsadaba oo ku samirnay in jidka haddana booliska noo sii istaago mootooyinkeena hantideenna u qabsado rag ka mida darawaliinta ama dadkii rakaabka moobeelada laga qaato furayaashii lagala wareego mootooyinka hadda way soo arki karaan ciddii danaynaysa waaxda dhulbixinta ifka xanala ka soo horjeeday ku wada jiraan sardhiga Wardhiigley qaaraa ku jira meelo kale goobo kale qaaraa yaala dadkii iyaga noocaas ah oo hantidooda maalkooda hadda ilaa hadda indhahooda ku soo jeeda ayaa meeshaan isugu yimid waxa aad la yaab lah mootooyinka sidaa loo gelayo dadka sidaa loo bahdilayo waa dad muwaadiniin Soomaaliyeed Faisal Abdi Farax Res TV Muqdisho wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo muddo 2 sano ku jiray xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa ayaa maanta laga sii daayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland ayaa waxa uu uga hadlay xarigiisa iyo xukunnadii ay maxkamadda ay ku riday intaan la soo xidhin walaalayaal waxa aan ka hadlayay bilihii ugu dambeeyay intaan la soo xidhin dhagaraha gaalada iyo dhibta ay nagu hayaan iyo inaynu ka digtoonaano dhagarur walba iyo xumaan walba si kooban haddaan u sheego waxa aan ka shaqaynayay wanaag farista iyo xumaan reebista ilaahayna faray ilaahayna wuxuu yidhi a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ammaan aynu ku leenahay waa wanaag aynu farno xumaanta aynu reebno taasoo waajib inagu ah inaynu muxuu samayno anoo bilihii ugu dambeeyay arrimaha ka hadlayay ayaa waxa jaamacadda barwaaqo oo xaflad qabsatay ka hadlay Muuse Biixi oo shabakada abaarsa iyo dugsiga abaarsaba ammaanay oo taageeray waxaanu sheegay in halkaasi lagu hayo wax islaamnimada iyo muslimiinta u dana ayuu sheegay waxay ahayd markaa uu hadlay taariikhdu 16 bisha 8 2021 aniguna maalin kadib ayaan hadlay anigoo arrinka ka hadlaya madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu booqday oo isagu soo arkay waxaan idhi madaxweyne adigu muddo yar oo kooban ayaa joogtay marka meeshu waxay u baahan tahay guddi hubisa ayay u baahan tahay
sidaasaan idhi waxay u baahan tahay meeshaasi cid yacni muxuu ahaayey soo hubisa waxay muxuu ahaayey qabanayso waxaad ogaan kartid maaha waxaan kaloo aan sheegay markii aan ka jawaabay arrinkaa in dhaqaalaha ay bixinayaan ee uu ku ammaanay iyaga inay dan inaga leeyihiin baan idhi sababtoo ah hooye gaalka ilaahay baa sheegay inaanu muslimka dan yani wanaag u wadin anigu waxaan war lacagtan ay bixinayaan dan bay inaga leeyihiin ha la iska hubiyo oo ubadkeen inay u dhigayaan ha la hubiyo bas meesha ha la hubiyo ha lala socdo baan idhi nuxurka weedhaydu saas ayuu ahaa waana duuban tahay maalin kadib markii ay taariikhdu tahay 19 bisha 8 2021 waa la soo xidhay markiiba waa la soo qabtay waxa weeye eedaa lay jeediyey inta burco layga soo kaxeeyey madheere la geeyey kadibna halkan aan ku dambeeyey eedo ayaa lay jeediyey eedahaasi waxay ahayd waxaad ceebaysay dugsiga abaarso waxaad warar been abuura ka faafisay dugsiga abaarso waayahay waxay yidhaahdeen caddaymaannu ku haynaa caddaymaha ay hayeen waxay keeneen dad ay yidhaahdeen waa waalidiinta dugsiga abaarso oo u taagan inay yihiin marag iga dhana isla markaana dhibanayaal waalidiinta waxaa lagu sheegay marag iyo dhibanayaal marag iga dhana iyo dhibanayaal say isu qabanaysaan anigu ma garanayo qofku dhibano gartay laakiin marag baan kugu noqonayaa dhibane kiisuu ka yahay waa lay keenay dadkaas waxaa kaloo lay keenay caddayn waxaa lagu yidhi muuqaalkii aad yani ka jawaabaysay ayaa caddayn ku ah iyo baadhihii waxay ga qorayayba intaasaa caddayn ku ah aniguna caddayntaydii baan keenay waaya waxaan anigu caddayn aan u keenay aan caddayn ka dhigtay aayadaha qur-aanka kariimka ee ka hadlaya inaanay gaaladu wanaag la doonayn muslimiinta wax khayra oo wanaaga inaanay la doonayn baan caddayn u keenay sababta waxaa laygu eedaynayaa dee waxaad gaaladii baad ku tiri muxuu ahayaa wanaagina lama rabaan anna waxaan idhi aayadahaasaa caddaynaya inaanay gaaladu wanaagina la rabin oo ay ujeed leeyihiin markay muxuu ahayaa dugsiyo inoo furayaan iyo markaynu ubadkeenna innagoo aan kantaroolin aynu ku sii daynayno aayadahaasaan keenay waxaan kaloo keenay aayado ka hadlaya inaanay gaaladu joojinayn la dagaalanka muslimiinta ilaa ay ka saaraan diintooda haddii ay karaan waxaan keenay aayado sheegaya ama ka hadlaya inaanay gaaladu jeclayn muslimiinta waxaa ka mid ahaa aayadaha aan keenay maxkamadda horteeda ee aan caddaynta ka dhigtay ilaahay baa marag laga dhigtaaye iyo hadalkiise acuudu billaahi min ashaytaani arajiim maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli alkitaabi wala almushrikiina an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum iyo ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم intaas ayaan aayadahaas ayaan keenay iyo aayadda odhanaysa بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم qodobka ugu dambeeya walaalayaal waxa la igu xukumay kitaab aanu ilaahay soo dejin oo la yiraahdo xeerka ciqaabta iyo xeerka habka ciqaabta maxkamadda waxaan ka dalbaday garsoorihii hore waxaan ka dalbaday iyo garsooraha dambaba waxaan ku yiri kitaabka ilaahay igu xukun marka waxa la igu xukumay kitaab aanu ilaahay soo dejin oo la xeerka ciqaabta keligayna maaha ee waa kitaab yaalla maxkamadda oo dadka lagu xukumo walaalayaal ilaahay wuxuu ina amray inaynu isla xukun tagno kitaabkiisa iyo sunnaha nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam waxaanu inaga reebay inaynu isla xukun tagno waxaanu soo dejin wuxuu inaga reebay inaynu isla xukun tagno waxaanu soo dejin ilaahay wuxuu yidhi bacda acuudu billaahi min ashaytaani arajiim
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما آياداس waxay cadeynaysaa sababta uu quraanku soo degay wuxuu quraanku soo degay in aynu isku xukunno golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay muddo 6 bilood ah ay ku kordhiyeen dhimista ciidanka midowga Afrika ee ADMIS ee ka howlgalaya gudaha wadanka Soomaaliya ciidankan ayaa in dhawaale ah waxa ay dawladda federaalka Soomaaliya ay quudareysay in la dhimo kadibna ay la wareegto mas'uuliyadda amniga ee guud ahaan wadanka Soomaaliya Xaawa Cabdikariin ayaa warkan inoo faahfaahinaysa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay go'aankii ay horay u gaareen golaha ammaanka iyo nabadda ee midowga Afrika kaasi oo ahaa in dib loo dhigo dhimista 200 oo kun oo askari oo ka tirsan ciidamada ADMIS ilaa iyo 30 Juun 2023 iyadoo la raacayo warmurtiyeedkii uu ansixiyay golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika intii lagu jiray shirkii 12 November qaraar tirsigiisu yahay 2670 ayaa si wada jir ah loogu ansixiyay dib u dhigista dhimista ADMIS sidoo kalena waxaa lagu xaqiijiyay in la qaato hab istiraatijiyadeed oo tartiib ah oo lagu ilaalinayo jadwalka bixitaanka ADMIS ee 31 December 2024 golaha ammaanka ayaa ka codsaday dawladda Soomaaliya inay bixiso warbixin dheeri ah 30 Abriil 2023 taasi oo ay ku jirto qorshe cusub oo ciidan dhisid ah sidoo kalena waxaa la go'aamiyay in la qabto shir rasmi ah oo looga hadlayo isbedelka Soomaaliya ka dhacay ugu dambeyntii 31 Maaj 2023 shirkaasi oo ay ka qayb galayaan Soomaaliya midowga Afrika midowga Yurub iyo wadamada kale ee ciidamada ay ka joogan Soomaaliya golaha ammaanka ayaa sidoo kale ku bogaadiyay ADMIS inay door muhiim ah ka ciyaartay sidii Soomaaliya ay kor ugu qaadi lahayd dagaalka ay kula jirta al-shabaab in mas'uuliyad ADMIS lagala wareego si guul lehna Soomaaliyana ay muhiim u tahay nabadda amniga mustaqbalka fog ee dalka dawladda UK oo ka tirsan dalalka ku jira golaha ammaanka ayaa sheegtay inay ku hanweyn tahay inay gacan dhaqaale ku taageerto midowga Afrika iyo Soomaaliya dadaalka waxayna sheegtay inay sanadkani 2022 $55 milyan oo dollar ay ku bixisay ADMIS 8 milyan oo u siiyay sanduuqa maalgelinta Soomaaliya dawladda UK oo ka tirsan dalalka ku jira golaha ammaanka ayaa sheegtay inay ku hanweyn tahay inay gacan dhaqaale ku taageerto midowga Afrika iyo Soomaaliya dadaalkan waxayna sheegtay inay sanadkani 2022 $55 milyan oo dollar ay ku bixisay ADMIS halka 8 milyan oo siiyay sanduuqa maalgelinta Soomaaliya guud ahaan warkii habeenimo ee aad kala socoteen telefishinka Rays xaruntiisa magaalada Muqdisho caawa halkaas ay noo joogo warkan midkiisa xiga inta aan ku kulmayno dhamaanteen isku duuban waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabad gelyo